dalalka Soomaaliya iyo Ethiopia oo in dhawaalaba muran xoog leh uu dhaxeeyay ayaa haatan waxaa muuqata in murankoodii uu si weyn ugu baahay guud ahaanba caalamka iyada oo labada dhinac uu midba midka kale doonayo in uu mintixaabiyo kagana guulaysto loolanka dhinacyada badan ee ay haatan isku wajahayaan dowladda Soomaaliya ayaa 23kii bishani waxaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay u gudbisay dalab ay ku codsanaysay in uu golaha ammaanku isugu yimaado kulan degdeg ah oo lagaga hadlayo damaca waalida ah ee dowladda Itoobiya ay ku doonaysa qayb ka mid ah dhulka Soomaaliya in ay ku meersato arrintani ayaa waxaa sidoo kale iyana dalab degdeg ah oo ay ku joojinaysa shirkaasi geysay golaha ammaankana u gudbisay dowladda dalka Itoobiya labada dhinacna waxaa dhex maray dagaal diblomaasiyadeed oo aad u adag iyada oo labada dhinac dhan waliba uu garabsanayay amaba uu kaalmaysanayay saaxiibadiisa caalamiga ah dowladda Itoobiya waxaa si weyn u garab taagnaa oo dhammaanba albaabada diblomaasiyadda garaacaya dalka Imaaraadka Carabta oo isagu haatan ah dalka sida aan leexleexa lahayn u garab taagan uguna garab taagan Itoobiya isku dayga ay ku doonayso in ay wax uun ama hilbo kala dhacdo dalka Soomaaliya haddaba golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo bishan uu gudoominayo dalka Faransiiska ayaa ugu dambeyntii afka ciidda u geliyay dowladda Itoobiya waxaana ay mar kale Itoobiya xambaarsatay mid ka mid ah guuldarrooyinkii ugu cuslaa ama guuldarradii ugu weynayd ee dhinaca diblomaasiyadda ah oo ay wajahdo iyada oo Itoobiya ay dadaal xoog leh gelinaysay sidii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayna u gaadhi lahayn ama uga hadli lahayn ama aysan uga kulmi lahayn isku daygeeda ay ku doonayso in ay qayb ka mid ah beriga iyo badda Soomaaliya gacanta ugu galaan waa ay guuldarraysatay dowladda Faransiiska oo iyadu gudoominaysa bishan ama ah hoggaanka bishan ee golaha ammaanka ee qaramada midoobayna waxa ay ku dhawaaqday sir rasmiyana ay u shaacisay in kulankaasi degdeg ah ee Soomaaliya ay codsatay in la isugu imaanayo la qabanayo haddaba kulanka waxa la qabanayaa baa leeyahay maalinimada Isniinta ah ee inagu soo foolle oo aan filayo saacado kooban in hadda ay ka harsan yihiin waa adigu 29ka bisha ayaa la qabanayaa tani ayaana waxay noqonaysaa guushii ugu dambeysay ee dowladda federaalka ah ee dalka Soomaaliya ay ka gaadho dagaalka iyo waliba loolanka adag ee dhinaca diblomaasiyadda ama arrimaha siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah ee ay doonayso in Itoobiya ay ku go'doomiso iyada oo haatanba gebi ahaan Itoobiya ay wajahayso mid ka mid ah xaaladihii ugu adkaa ee dhinaca diblomaasiyadda wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ahaana ra'iisul wasaarihii dalka Itoobiya ayaa sida la sheegay waxyaabaha xilka looga qaaday waxa ka mid ah in uu diiday inuu qayb ka noqdo ama hogaamiyo wafdi ku socda magaalada Muqdisho yacni wafdi ay dowladda Itoobiya u qorshaysay in ay tagaan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya warbixin kale ayaynu ku eegi doonaa haddii Rabbi subxaanahu wa tacaala uu qadaro laakiin haatan golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxa uu u ballansan yahay maalinta Isniinta ee inagu soo foolle shir degdeg ah oo looga hadlayo arrimaha ka taagan geeska Afrika gaar ahaan damaaciga Itoobiya oo Soomaaliya ay u gudbisay waxaana lagu wadaa shirkani inay ka soo baxaan go'aamo cadcad oo Itoobiya waa marka koobaade digniin lagu siinayo waa marka labaade waxaa si rasmi ah loo cambaarayn doonaa oo golahan ammaanku uu cambaarayn doonaa heshiiskii xaaraanta ahaa ee magaalada Addis Ababa horaantii sanadani 2024 lagu gaaray magaalada Addis Ababa marka la cambaareeyo kadibna waxa Itoobiya loo jeedinayaa digniin in ay faraha kala baxdo oo ay joojiso juqaynta iyo faragelinta ay ku hayso jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya dhulka lagu magacaabo ama xuduudda dalalkii Afrika ay ku heshiiyeen
ee 74kii la go'aamiyey in loo daayay sidiisii taasi oo noqonaysa dharbaaxo culus oo Itoobiya ku dhacday siday dooniba ha noqotee dowladda federaalka ah ee dalka Soomaaliya ayaa iyada halkaasi waxa ay geyn doontaa cabashadeeda iyo sidoo kale dhammaan qodobada shuruucda caalamiga ah ee ay Itoobiya ku xadgudubtay iyo tallaabada ay tahay in laga qaado waxaana dowladda Soomaaliya ay dalban doontaa in Itoobiya laga qaado tallaabo sharciya oo waafaqsan qawaaniinta caalamiga ah ee dunida xorta ahi ay ku kala nabad gashay kuwaasi oo inta badan ay golaha ammaanku yihiin goobaha looga doodo ama goobaha lagaga hadlo sida ay dooniba ha noqoto Itoobiya dadaalkeedu ma yara isku dayadeeduna ma yara dhanna uma fayooba oo haatan hawshu waxay u muuqataa mid allow sahala iyaga iyo Muuse Biixi iskuma wanaagsana oo Muuse go'aan cad ayaa uu la hor istaagay iyagii waxba ma hayaan dowladda Soomaaliyana meel walba waa ay garaacday oo dhammaan albaabadii diblomaasiyadda oo dhan waa ay ka soo xidhay kii ugu dambeeyey ee nam waxa la yidhaahdo ayaa aynu markhaati ka ahayn oo dhammaan dalalka caalamku ay si cad u sheegeen in ay taagan yihiin mowqifka ah in aan lagu xadgudbi karin jiritaanka dal ka mida dalalka caalamka xuduudihiisa dhuleed midnimadiisa iyo haybadiisa qaran Itoobiya sida ay dooniba ha noqotay guuldarrooyinka isdaba joogga ah ee ay xambaarsanaysa ayaa marba marka ka dambaysa isa soo taraya waxaana tani ay u muuqataa tii ugu cuslayd ama dharbaaxadii ugu weyneyd iyada oo horay dowladaha Maraykanka iyo weliba qaar kale oo ka mid ah dalalka ay ologa ku yihiin dhinaca siyaasadda arrimaha dibaddu ay Itoobiya ku eedeeyeen faragelin qaawan oo ay kula kacday midnimada dhuleed iyo weliba haybadda qarannimo ee dalka Soomaaliya iyada oo Maraykanku sidoo kale uu sheegay in isku dayga iyo weliba faragelinta dalka Itoobiya ay amniga guud ee gobolka iyo danaha Maraykanka liddi ku tahay sidaas daraaddeedna loo baahan yahay Itoobiya in barta ay joogto ayna dhaafin farahana kala baxdo guud ahaanba isku dayadii iyo qorshayaashii ay ku doonaysay in ay si sharci darro ah qayb ka mid ah dhulka Soomaaliya ay gacanta ugu dhigto taasi oo aanay Itoobiya ka bixinin jawaab muuqata balse si guud ay Itoobiya u muujisay guuldarrooyinka isdaba joogga ah ee marba marka ka dambaysa siyaasaddeedii arrimaha dibadda ay wajahayso amaba salka dhulka ugu dhufanaya xaaladda guud ee dalka Itoobiya ayaa haatan ah mid baaxaadegaysa khalkhalka dhinaca siyaasadda arrimaha dibaddana waxaa ka sii daran khalkhalka dhinaca amniga iyo weliba siyaasaddii arrimaha gudaha oo iyaduna isku dhex yaacday dhan walibana waxaa muuqata haatan Itoobiya culayska iyo caqabadaha ay marti gelinaysaa in ay yihiin kuwii ugu cuslaa sicir bararka dhaqaale la'aanta iyo baaxadegga siyaasadeed dalkani ay isku biirsadeen ayaa dad badani isweydiinayaan sida uu ku damaaciyey dal dad kale ay leeyihiin haddana waxaa la isku wada qanciyey sidaasi oo ay tahay in uun Soomaalida laga dareemay iyaga xaggooda jileeca sida ay dooniba ha noqotee bal maalinimada isniinta kulanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu ka yeelanayo dalabkii Soomaaliya ay u gudbisay iyo sida halkaasi Soomaaliya ay u horgeyso doodeeda iyo waxa ka soo baxa akhyaarta iyo saaxiibada hawada nagala socdo barnaamijyada iyo wararka xiga ayaa aynu kula socon doonaa tan iyo inta aynu isugu imaanayno warbixinadeena dambe waa Galad Xasan oo daaha gadaashiisa idinkala hadlaya oo idin leh fi amaanillah